dadweynaha reer Gabiley ayaa cabasho ka muujiyay shaqada saldhigyada booliiska iyo xeer ilaalinta. Arrintani ayaa ku soo beegantay xilli ay cabashada dadweynuhu sababtay in muwaadin ka cabanaya cadaalad darrada uu isku dayay in uu isku daldalo geed weyn oo ku hor yaala maxkamadda xeer ilaalinta horteeda, walow ay badbaadiyeen ciidamada booliisku. Haddaba waxa weli taagan cabashada dadweynaha way cadaalad darradu meel ali meesha cadaalad darro ka timaado dumisiyada dib baa ka timaado aragtida qofku inay activity ahaato ma fiicna in sharcigu activity noqdaan doonina halka waxaan kaga hadalnaa cadaalad darrada ka tirsanano saldhigyada booliiska ee Gabiley iyo Wajaale ugu baaqanaa dadka waa la kicinayaa inay gacanta soo geliyaan oo ay fooda ka dhowlaan dalka iyo dadka caqabad inta badan soo noqotay weeyaan problemka ugu weyn waxa uu dhex yaala in waxa la qariyo maaha waxa fiiska xeer ilaalinta iyo maxkamadda xafiiska xeer ilaalintu uma hanuunsana qaabkii ama systemka u shaqeynaysa maxkamadda waxaad arkaysaa qof maxkamaddii dambi ay ku weyday oo loo si xorriyadiisa loo codiyay oo la sii daayay oo haddana saldhig ku jira anigu filayaa mushkiladda meesha taalla sidaan oo mar hadday garsoorkii iska leexiyeen mushkiladdii meesha taallay oo ay caddeeyeen inaanay wax shaqo ah ku lahayn qofka muwaadinka xaq looguma laha inuu qofka muwaadinkii iska xidhnaado intaasoo cisho ama 10 cisho ama wax ka badan ama cagajugleyn iyo handadaad in lagu sameeyo awoodii dawladda iyadoo la adeegsanayo. garsoorka gobolka Gabiley ayaa eedayn culus u soo jeediyay xeer ilaalinta iyo saldhigyada booliiska iyadoo xilligan ay ku xidhan yihiin dad loo tuhunsan yahay in ay tahriibiyaan dhalinyarada reer Somaliland oo muddo 14 cisho ah loo laayahay iyadoo dambi la'aan ugu xidhan yihiin xabsiyada dhexe ee magaalada Gabiley. لو هلك بارست بليسكوين كما عدا بارستوداسي دم بيدعي عدينه لو هي وحي لو هي حتى دبنياش دعوده دبنياش دينعكيه ما soo raaciyaan isneesh وعقبلها كميدا had iyo jeer dacwada ciqaabta maxkamadda garsooraha ka hor yimaada xafiiska xeer ilaalinta had iyo jeer state ku matala inaanu state ku kaliya ku eekaanay xuquuqda muwaadiniintana ilaaliyo. xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Gabiley Aadan Salaad Seed ayaa daadifeeyay eedeymahaasi u soo jeediyay garsoorku. arrintani ayaa sababtay in ay saaka yimaadaan gobolka Gabiley taliyaha ciidanka booliiska Somaliland sareeye guuto Cabdilaahi Fadal Iimaan iyo kusimaha xeer ilaalinta guud ee qaranka oo kulamo la yeeshay xeer ilaalinta gobolka Gabiley iyo waliba garsoorka maxkamadda gobolka Gabiley. kadib markii ay soo dhameysteen kulamadaasi taliyaha ciidanka booliiska sareeye guuto Cabdilaahi Fadal Iimaan oo la hadlaya warbaahinta ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa hawsha waxa kormeer baan ku nimaaniyo xereeyaha guud waxaan u nimi sidii aan u xoojin lahayn ama u dardargelin lahayn hay'adaha hadday tahay xeeraalinta maxkamadaha booliiska asluubta oo asal silad ay shaqadooda dhaxayso sidii loo dardargelin lahaa hawlahoodana ay isugu xidhnaan lahaayeen si fiican baan shirkaas loogu dhamaaday guula waa sii xoojin markii hore way wada shaqeynayeen inay sii xoojiyaan way dardargeliyaan markii hore wax ku xumaama jirin iyo cabasho laakiin waxa weeye inay sii dardargeliyaan ay xoojiyaan maadaama ay rukun muhiim u yihiin qaranka Somaliland intaasaan u nimi. sidoo kale isaguna waxa faahfaahin laga siiyay hawlaha cadaaladda iyo tahriibka kusimaha xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Somaliland waxa uu yiri waxyaalahan soo dhameynaa hawlahan ay dardargeliyaan guud ahaan nabadgelyadana gobolkana aanu iyo qaabka maxaabiista loola macaamilo waxaasna aanu iyagana kormeerno intaas ay joogeen fadalkayo shirkooda ka soo baxnaa maxkamadda kan kalena waxaanu booliiska soo joogaa taliyaasha fadhiya walaakaysan iyagana haddii la yiraahdo waxaan doonaa booliiska taliya tusaalayn iyagana siino. saluuga dadweynaha ee gobolka Gabiley ayaan u muuqanin in aanay wax badan ka bedeli doonin imaatinka taliyaha iyo xeer ilaaliyaha guud dhibaatada cadaalad darrada ay tirsanayaan dadweynuhu. waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Juba, Somsa TV, Gabiley.